asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhowaada barnaamijkeena ramadaan english series waa maalintii labaad mar kale waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak haddii aad cashirkii koowaad ee aadan daawanin waa fadlan waxaad ka helaysaa profileka gudaha u gal waad soo helaysaa ama youtube-ka wax ka baro academy ku qor waad ka helaysaa ama applicationkeena wax ka baro academy waad ka helaysaa. Alright, day 2 weeyaan intentions and preparations waa maalintii labaad wax niyeysiga iyo diyaar garowga weeyaan ayaan kaga hadlaynaa. Alright, marka soo dhowaada mar kale su-aasheena ama ereygeena jumladeena koowaad ee aan baranayno waxa weeyaan I am setting a goal to finish reading the whole Quran this month. Waxaan hadaf ka dhiganayaa ama hadaf ahaan ama gool ahaan u dejisanayaa inaan dhameeyo qur-aanka bisha ramadaan inaan qur-aanka dhameeyo. Inta badan waa very common weeyaan, waa mahadaf aad iyo aad caan u ah weeyaan in dadku markii bisha ramadaan la gaaro qur-aan aqrintii la siyaadiyo. Dadka ugu yar qofka ugu yarne uu markay ugu yaraato maalintii hal juz aqriyo oo kadibna 30 maalmood kusoo gabagabeeyo. Dadka qaarna maalintii 2 juz 3 juz qaar ayaa jalaad aqriyo. Marka waa hadaf fiican weeyaan. So setting a goal waxa weeyaan waa ereyga aan baranayn inaad hadaf ama aad goal aad dejisatid weeyaan. Waxaan kaloo ayadana haddii ay kugu cusub tahay baranaynaa whole oo ah oo idil weeyaan, qur-aanka oo idil, whole qur-aanka oo idil. Alright, Soomaaliga maxaa ku macneynay? Waxaan dejisanayaa hadaf inaan dhameeyo aqrinta qur-aanka kariimka oo dhammaystiran. Waxaan baranay setting a goal oo ah hadaf dejin weeyaan, deciding on something you want to achieve. Wax aad rabto inaad go'aansato, wax aad rabto inaad guul ka gaarto ama aad qabato. Whole-na waxaan dhahnay dhammaan weeyaan ama dhammaanteed. Everything weeyaan ama complete wixii oo dhammaystiran weeyaan. Alright. We need to stock up on essentials like dates and flour before Ramadan begins. Waxaan u baahannahay inaad keedsanno waxyaabaha essentialska, waxyaabaha daruuriyaadka ah ama daruuriga ah bisha Ramadaan sida timirta oo kale iyo flour burka oo kale before the Ramadan begins, intuusan Ramadaanka bilaabanin. Inta badan waxaa la dhahaa markuu bisha Ramadaan bilaabanayso dadku timir badan ayay soo iibsadaan soo maahan. Stocking up marka waxa weeyaan stock up wax inaad jumlo u soo iibsato oo aad keedsato weeyaan, stock up inaad keedsato. Essentialsna waxa weeyaan waxyaabaha daruuriyaadka ama asaasiga ah ayaa la dhahaa essentials. Alright, qaybta commentiga fadlan ku soo qor erayadan adoo isticmaalayo stock up iyo essentials isticmaalayo. Waxaad ka fikirtaa marka stock up isticmaalayso dukaanleyda iyo baqaareyda sida ay wax sameeyaan, qaasatan maalmahay u diyaar garoobayaan ciidaha oo kale maxay sameeyaan? Dhar ayay keedsadaan, Soomaa dhar ayay soo jumlaystaan oo ay keedsadaan si ay maalinta ciida u iibshiyaan. Alright, marka waxaan baranay stock up oo ah keedsasho, wixina soo jumlaysato oo aad keedsato. Essentialna waxaan dhahnay waxyaabaha daruuriyaadka ama muhiimka maalintaasi ama munaasabadaasi u ah. Soomaa maalintaasi u ah. Alright, jumlada saddexaad ayaan u gudbaynaa. I have cleared my schedule in the evenings to focus on my prayers. I have cleared my schedule. Schedule-kayga ama jadwalkayga ayaan nadiifiyey weeyaan habeenadii, maqribadii ama fiidkii si aan focuska u saaro ama attention dheeraad u siiyo ama waqti aan ugu helo cibaadada, salaadaha ugu helo, waqti ugu helo. Clear my schedule macnaheedu waxa weeyaan in shaqooyinkii aad maqribkii iyo habeenkii aad qaban jirtay oo kale aad meesha ka saarto, ama aad subaxdii hore qabsato, ama aad gebi ahaanba aad iska joojiso inaad qabato si aad focus ama waqti ugu hesho ama focuska aad u saarto salaadaha. Maxaa yeelay bisha Ramadaan oo keliya ayaa taraawiixda la dukadaa, waana bisha ugu barakada badan cibaadooyinka aad iyo aad loo aqbalo. Marka waxyaabaha daruuriyaadka aanan ahaynin oo kale oo aad ka maarmi karto waqtigaaga ka saar si aad focuskaaga ama attentionkaaga aad isugu geyso cibaadada isugu geyso.
focus more waa erey kale oo aan baranay soo maahan. cleared my schedule micnaheedu waxa weeyaan banayn jadwalkaaga ama waqtigaaga soo maahan. making time by removing other tasks, inaad waqti abuurtid si aad oo aad shaqooyinka kale aad meel uga tagto. focus waxa weeyaan focus more xooga saarid weeyaan inaad xooga saarto weeyaan inaad xooga saarto. qaybta commentiga kusoo qor cleared my schedule adigoo isticmaalayo jumlo aanan ahaynin midda hadda aan ku siiye. si aan hinti kuu siiyo waxaad ka fikiri karaysaa tusaale ahaan oo kale haddii aad galabta aad leedahay oo kale tusaale ahaan oo kale hooyada oo kale eraboorka aad kasoo dejinaysid oo kale aad soo dhaweynaysid oo kale galabta ama beri galab shaqadii aad qaban laheyd oo kale inaad ka clear garayso ama jadwalkaada ka clear garayso si aad hooyada aad eraboorka uga soo dhaweyso. waan kuu sheegay soo maha. focus more waxaad u isticmaali karaysaa tusaale ahaan oo kale marka imtixaanaadka ay kugu soo dhow yihiin oo kale inaad focuska aad siiso imtixaanaadkaaga jumlo ahaan oo isticmaali karaysaa. alright, saddexdaas jumlo ayaan qaadanay. waxaad ka shaqaynaysaa haddii aad applicationka soo dejisanin fadlan soo dejiso. quizkan ayaad ka shaqaynaysaa. set a goal maxaa weeyaan forget something to decide or target iyo wixii lamidka weeyaan. jawaabaha ayaa dooranaysaa. markii aad doorato dhowr su-aalood weeyaan kadibna check ayaa leedahay iskoorkaaga ayuu ku siinaya. wax ka baro academy haddii aad weli iska diiwaangelinin wax badan ayaa ku dhaafayo. haddii aad tahay qof luqadda ingiliishka raba inuu si fiican heer uga gaaro fadlan soo dejiso. waxaan isticmaalaynaa manhaj caalami oo la dhaho CFR. isbuuc walbana 2 jeer ayaa live soo galnaa. koorsadeennuna waa koorsada ugu ballaaran ee ebed bulshada soomaaliyeed loo soo gudbiyo. haddii aad faahfaahinta u baahan tahay fadlan badhankani taabo oo faahfaahinta soo dhegayso. markaad diyaar naqatana nagu soo biir hadduu ilaahay ka raali noqdo kama shaalaayi doontid. waxaan filayaa cashirka inaad si fiican uga faa'iidaysateen. u diyaargarooba cashirka xigo iyo beritoole. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.